الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ilaahay qofka markuu hurdada ka soo kaco waad u jiiftay caawo dhan ayaad soo kacday subaxdii maxaad dhahaysaa? waxaad lahdaa alxamdu lilaahi aladii axyaana bacdama amaatanaa wa ilayhi nushuur. alxamdu mahad lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay alladii allihii axyaanaa na soo nooleeyey bacdamaa amaatanaa markaan dhimanay ka gadaal wa ilayhi nushuur. kulanka iyo aruurkana xaggiisa ayuu markaa ahaaday. qofku marka uu hurdo waa xayaata bax yar oo ku meel gaar ah. allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha waalatii lam tamut fii manaamiha. ilaahay nafta ayuu qaataa taan dhiman hurdada lagu oofsadaa fayumsiku alatii qadaa calayha almowt. ilaahay naftuu ka celiyaa intii meel lagu xukmaya wayursilu alukhraa ilaa ajalin musamaa. nafta kale waa la soo diraa ilaa wakhtigeeda laga gaaro. mid ayaad ahayd waxaad kala ogeed malaa ilaahayaa xayaatada kugu soo celiye. mar allaala marka aad soo kacda hurdada qaylo iyo buuq iyo dagaal ha bilaabin, muusig dhegaysashadiisa ha ku bilaabina. dheh alxamdu lilah ilaahayaa mahad iskale alladii axyaana na soo nooleeyey bacdamaa amaatanaa markaan dhimanay ka gadaal wa ilayhi nushuuru. xaggiisaa loo noqonayaa. waxaad kaloo dhahaysaa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah. ilaahay xaqnimo lagu caabudoon allaha waaxidka ahayn ma jira waxdahu xaalo uu keligiis yahay laa shariika lahu shirki uma sugnaanin. lahu lmulku mulki ilaahay buu u sugnaaday walahu alxamdu mahadna asaga iskale wahuwa calaa kulli shayin qadiir. wax walba alla kari kara waaye waxaad ku dartaa intaa subxaana allahi. ilaahay ayaa nasahan oo ceeb iyo nusqaan aan lahayn. walxamdu lilaahi ilaahay ayaa mahad iskale iyo faalo iyo ammaan. dadkoo dhan hadday mahdiyaanna waa mahadsan yahay, haddaysan mahdininna ilaahay waa mahadsan yahay labada marba subxaana wa tacaala. walaa ilaaha ila allahu ilaahay asaga aan ahayn ma jira. wallaahu akbar ilaahay ayaa weyn. walaa xawla walaa quwata ila billaah. walaa xawla xeelad iyo tab iyo caqli aan xumaanta uga leexda melihi. walaa quwata awood aan diinta ku raaca melihi ilaa billaah. inuu ilaahay igu saacido maahana allihii alcaliyi alcadiimi sareeyey oo weynaa ee rabbi kfir lii ilaahayow ii dembi dhaaf. sidaana waad dhahaysaa markaad hurdada ka soo kacda. waxaad kaloo dhahaysaa alxamdu lilaahi aladii caafaanii fii jasadii ilaahay ayaa mahad iskale jasadkayga ii caafiyey. waradda calaya ruuxii ruuxdayda korkayga ku soo celiyey. waadina lii bidikrihi dikrigiisana ii fasaxayo markaa ii idmay inaan asaga markaa xuso. ilaahay ayaa mahad iskale alladii caafaanii fii jasadii jasadkayga caafimaad ii siiyey. waradda calaya ruuxii ruuxdayda ii soo celiyey. waayo dad badan ayaan jasadkooda caafimaad qabin, musqulaha aan aadi karin oo la qaada, aan soo fadhiisan karin oo la fadhiisiyaa, aan wax cuni karin oo lagu qabaa. maca daalika waxaad dhahaysaa alxamdu lilaahi aladii caafaanii fii jasadii waradda calaya ruuxii waadina lii bidikrihi dikrigiisana markaa ii fasaxay. 10 aayadood ee ugu dambaysa suurata aali cimraanna waad akhrinaysaa. ina fii khalqi asamaawaati waalardi ileen aayadahan ilaahay markii nebiga lagu soo dejiyey bilaal ayaa u yimid. habeennimaa lagu soo dejiyey nebiga. sidaa darteed bilaal ayaa u yimid oo ogeysiinayey salaada aadaankeeda. nebigoo ooynaya ayuu u yimid sala allahu calayhi wasalam. bilaal wuxuu dhahay maa yabkiika yaa rasuula allah, maxaa kaa ooyiyey? bilaal wuxuu dhahay aayado ayaa laygu soo dejiyey caawa. maca daalika iikoo kale aan arkin waylun halaag wuxuu u sugnaaday qofkii akhriyo oon ku tadabburin. halaag wuxuu u sugnaaday qofkii akhriyo oon ku tadabburin. waa ku soo celceliyey nebiga. aayadahana waa ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waannahaar ilaa suuradda ay markaa ka dhammaato. ina fii khalqi asamaawaati samaawaadka abuurkooda iyo waalardi arlada abuurkeeda iyo waاkhtilaafi alleyl isbedelka habeenka iyo wannahaari midda maalinta la aayaatin
aayaad iyo cibrooyin ayaa ugu jira liulil albaab dadka cuquusha u saaxiibka ah. dadka caqliga leh ayaa habeenkii maalinta isbeddelkiisa, samaawaadka tiirla'aanta la taagay, arlada la goglay oo la fidiyey ugu sugan, iyo isbeddelka habeenka iyo maalinta ulil albaab. yaa la yidhaahdaa ulil albaab? dadka caqliga u saaxiibka yeeyihiin dadka kala siyaaseeya miya? maya. dadka ganacsiga iyo bayc mushtarka si fiican u bartay miya? haddaana loo tilmaamaa aladiina yadkuruuna allah, waa kuwa ilaahay xusaya qiyaaman ayagoo taagan, wa qucuudan ayagoo fadhiya, wa calaa junuubihim iyo ayagoo junuubkoodii dhinac u jiifa. intaba ilaahay ayay ku xusaan subxaana wa tacaala. maxaa u sii dheer, wayatafakkaruuna waxay ka fakeraan fii khalqi asamaawaati waalardi, samaawaadkii arlada qaab abuurkooda ayagoo dhahaya rabbanaa rabbigeenniyow maa khalaqta haadaa baatilan, kan baatil iyo cayaar iyo dheeldheel uma abuurin, subxaanaka adigaa hufan oo nusqaan aan lahayn, welad iyo saaxiibana aan samaysanine, faqinaa naga kori cadaaba annaari, naarta cadaabkeeda ilaahayow naga kori. dadka dhahaya waayo ulul albaabka. ilaahay ayay xusaan ayagoo taagan, ayagoo fadhiya, ayagoo jiifa. waa saddexda xaalad oo insaanka uu ku sugan yahay. mar waa fadhidaa, mar waa taagantaha, marna waa jiiftaa. wax ka dhaxeeya malaha. qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim ayay ilaahay ku xuseen. samaawaadkii arlada abuurkooday ka fakarayaan, wayatafakkaruuna waxay ku fikirayaan fii khalqi asamaawaati waalardi, samaawaadkan saan u waaweyn oo xoogga leh, tiirla'aanka la taagay, alle ka xoog badan inuu jiro abuuray og yihiin, iyo arlada sidaa ah. rabbanaa maa khalaqta haadaa baatilan, ilaahayow kan baatil iyo dheeldheel iyo ha iska ahaada uma samaynin, in la fiirfiirsado uma abuurin, ee in lagu caqli qaataad u abuurtay. subxaanaka ilaahayow adaa ceeb iyo nusqaan ka dheera, faqinaa cadaaba annaari naga kori naarta cadaabkeeda. rabbanaa rabbigeenniyow innaka adiga man tudkhili nnaara, qofkii naarta aad gelisa faqad akhsaytahu waad hoojisay. qofkiiba naar gala oo naarta aad ilaahayow ugu tala gasho, kaa waa u dhammaatay. wamaa lilظaalimiina, dhaalimiintana uma sugnaanin min ansaarin wax u gargaara. dhaalimiinta wax kaalmeeya oo nasri siiya oo ilaa mtaqaana alla xaggiisa uga dhaalmeeya, intaasoo dhan markaa malaha. maa lilظaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac, mid xamiima malaha iyo shafeeca la aqbala. rabbanaa innaka man tudkhili nnaara, ilaahayow qofkaad naarta gelisa faqad akhsaytahu waad hoojisay. wamaa lilظaalimiina min ansaarin, dhaalimiinta wax u gargaara markaa uma sugnaanin. rabbanaa rabbigeenniyow innanaa anagu samicnaa waxaan maqalnay munaadiyan mid munaadi ah, mid qaylinaaya, mid naadinaaya oo dhawaaqayo, yunaadii liliimaani, iimaanka dadka ugu naadinaaya, hadalkiisana uu yahay an aaminuu birabbikum, rabbigiin rumeeya. fa aamanaa waaba rumaynayba. isla markii aan maqlnay ma dhihin rumayn maxaa la dhahaa, rabbi maxaa la dhahaa? isla markiiba fa aamanaa waa rumaynay. rabbanaa rabbiyow faqfir lanaa, noo dhaaf dunuubanaa dembiyaalkeena, wakafir ilaahayow astur oo qari oo naga tirtir cannaa xaggeena sayi'aatina gafafkeennii qaladaadkeena, watawafanaa na oobso oo na dil maca alabraari, anagoo baariyaalka micigooda ku jira. ilaahayow nafta naga qaad. watawafanaa maca alabraar, baariyaalka micigooda anagoo ah ilaahayow, waana dil oo dadka ashraartee sharta badan anagoo ku dhex jirna, ilaahayow nafta ha naga qaadin. rabbanaa inanaa samicnaa waan maqalnay munaadiyan dhawaaqe oo yunaadii ku dhawaaqaya liliimaani oo dhahaya an aaminuu birabbikum, wa rabbigiin rumeeya. fa aamanaa waa rumaynay. rabbanaa faqfir lanaa, rabbigeennow noo dhaaf dunuubanaa dembiyaalkeena, wakafir ilaahayow astur cannaa xaggeena sayi'aatina qaladaadkeenii gafafka naga dhaca, watawafanaa maca alabraari, baariyaasha micigooda anagoo dhex ah ilaahayowna oobso. dadka fujaartii qamri cabliyaalka ah, diinta alla ka durqee qayilaaya, shirkiga iyo macaasida iyo xumaanta ku dhex jira anagoo ku dhex jirna, ilaahayow hana oobsan, hanana dilin, waa khaatima xume. ilaahayow baariyaalka adig ku xuso oo diinka raaca, khayrka iyo wanaagga ku dadaalay, salaada dukanaya, khayrka ku dhex socda, micigooda anagoo ah markaa nagu dil, waa xusnulkhaatime. rabbanaa rabbigeenow waaatinaa nasiimaa wacadtanaa, waxaad noo yabohdood noo ballanqaaday calaa rusulika, ay calaa lisaani rusulika waaye,
rusushaada carabkooda waxaad noogu ballanqaaday ilaahayow nasii oo jannada ah, walaa tukhsinaa, ilaahayow hana hoojinin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo, waayo innaka adiga laa tukhlifu almiicaad, miicaadka mid guub yeelaa ma tihid, ballannada mid ka baxaa ma tihid. rabbiyow nasii ballanqaadkaad noo ballanqaaday. rususha carabkooda waxaad noogu ballanqaaday, ileen adi intaad noo timid nooma sheegin, rasuul ayaad noo soo dirtay, waa aaminay, waa rumaynay. ballanqaadkii rususha carabkooda aad noogu ballanqaaday nasii, hanana dulaynin yowma alqiyaama, innaka laa tukhlifu almiicaad. fastajaaba, wuu ka ajiibay lahum ayaga rabbuhum rabbigood oo wuxuu yidhi annii anigu laa udiicu ma dayacayo camala caamilin shaqaale shaqadiisa oo minkum idinka idinka mid ah. caamil camal uu qabtay ma dayacayo idinka mid ah, min dakarin aw unhaa, lab ahaaye ama dhadig, dakar waa wiil, aw unhaa waa naag, bacdukum gobolkiin min bacdin gobolka kale ayuu ka ahaaday, qaarkiin qaarka kale ayuu ka ahaaday. faaladiina haajaruu, intii hijrootay oo wa ukhrijuu min diyaarihim, guryahooda laga bixiyey oo wa uuduu la dhibay fii sabiili, jidkayga lagu dhibay oo wa qaataluu dagaalamay, wa qutiluu la dilay, la ukafiranna dhaafee canhum xaggooda sayi'aatihim, xumaanyaalkoodaan ka dhaafayaa buu dhahay ilaahay, wala udkhilannahum, waxaan gelinayaa jannaatin jannooyin tajri ay soconaysa min taxtihaa, hoosteeda alanhaaru wabiyaala, hawaaban waa abaalgud oo min cindi illaahi, ilaah agtiisa ka ahaaday, wallaahu cindahu, ilaahay agtiisa waxaa ahaaday xusnu hawaabi, abaalgud midka ugu fiican. laa yagurannaka, yaysan ku kadin rasuulkii allow taqallubu aladiina kubii gadgadoonkooda kafaruu kufriyey filbilaadi, bilaada ay ku gadgadoomayaan, ganacsiga iyo biyac mushtarka, dalxiiska ay bilaada u kala aadayaan, waayo mataacun qaliilun, waa raaxa yar, uma ma'waahum jahannam, intaa ka gadaal ma'wadkoodii hoyadkoodu waa jahannamo, wa bi'sa almihaadu, gogolna jahannamo ayaa u baas leh. laakiinse kuwii ittaqow cabsaday rabbahum, rabbigood ka cabsaday, lahum jannaatun, jannooyin ayay leeyihiin, tajri ay soconaysa min taxtihaa, xaggeeda hoose alanhaaru wabiyaalo, khaalidiina fiiha, waa ku dhex waarayaan gudaheeda, nusulan waa soo dhoweyn iyo martiqaad oo min cindi illaah, ilaahay agtiisa ka ahaatay. wamaa cinda allaahi, wixii ilaahay agtiisa ahaaday ayaana khayrun lilabraari, baariyaasha u khayr badan. waxa ilaahay agtiisa ahaadaa baariyaalka u khayr badan. wa ina min ahli lkitaabi, kitaabka ehelkiisa laman baa ka mida, yu'minu billaahi, ilaahay aaminsan, wamaa unzila ilaykum, wixii xaggiina loo soo dejiyey rumaysan, iyo wamaa unzila ilayhim, wixii xaggooda loo soo dejiyeyba. kitaabka ehelkiisa waxaa ka mida ku aaminsan wixii idinka laydiin soo dejiyo qur'aanka ah, wamaa unzila ilayhim, wixii xaggooda loo soo dejiyey oo kitaabkii injiil ah, khaashiciina lilaahi, ayagoo khushuucsan oo ilaahay u khushuucsan, laa yashtaruuna, aan gadanaynin biaayaati illaahi, ilaahay aayaadkiisa hamanan qaliila, lacag yar aan ku iibsanaynin. ulaa'ika kuwaasi lahum waxa ay leeyihiin ajruhum, ajirkooda ayay cinda rabbihim, rabbigood agtiisa ku leeyihiin. ina allaha sariicu lxisaabi, ilaahay alla xisaabtankiisu ay soo degdegaysa waayo subxaana wa tacaala. ilaahay waa sariicu lxisaab oo alla xisaabtankiisa uu soo degdegaya waayo. aayaddu waxa ay ku soo degtay ninka lagu magacaaba najaashi oo boqorkii xabashada ahaa ayay markaa ku soo degtay, waayo mar allaala markii muslimiinta ay ka baxeen oo lagu dhibay magaalada maka, rasuulku wuxuu yidhi aada dhulka etoobiya, boqor ayaa jooga agtiisa, aan dadka lagu dulmin. meesha markay tageen jacfar ibni abi aalib iyo cuhmaan ibni cafaan, abu salama, umu salama, umu xabiiba iyo dadka lamidkaa markay meesha tageen ayaa quraysh waxay ogaadeen inay muslimiinta amni istiqraar ku sugan yihiin. 2 nin ayay soo wadeen ayaa la yidhi, ay direen oo xoog badan, waxay u dhiibeen hadiyo badan. najaashi u geeyay dhaheen, hadiyada siiya, dadkaana ka soo wada. najaashiyay u tageen, arrintii bay la socodsiiyeen, hadiyadii ayay meesha u dhigeen. mayuu dhahay ilaa aan afkooda ogaada, waa loo wacay. jacfar ayaa u hadlay, hadal fiican ayuu ku hadlay, qur'aan ayaa loo akhriyey. najaashi ka gadaal waa khushuucay, waana ooyey.
mar allaala markuu ooyey ayuu dhahay baxa idinkana iga taga, qofaan idinku siinaya malaa, hadiyadiinnana qaatuu dhahay bax ma idinka rabo, idinkana muslimiinay beledkayga ku noolaada, qofkii idin cayogaraama laga qaada, qof allaala qofkii idin dhibana saas oo kale. maca daalika ninka ayay ku soo degtay aayadda wa inna min ahli lkitaab, ila najaashi ahlu kitaab ayuu ahaa, laman baa ka mid ah yu'minu billaahi, ilaahay rumaysan, waa najaashi, wamaa unzila ilaykum, wixii idinka laydiin soo dejiyey qur'aanka ayuu rumeeyey, wamaa unzila ilayhim, wixii xaggooda loo soo dejiyey waa kitaabkii nebi ciise, khaashiciina lilah, ayagoo ilaahay u khushuucsan oo laa yashtaruuna aan gadanayn biaayaati illaahi, ilaahay aayaadkiisa tamanan qaliilan, hadiyadii waa ku soo celiyey, ulaa'ika lahum ajruhum cinda rabbihim, rabbigood agtiisa ayay ajirkoodu ku leeyihiin. najaashi wixii la mid ah, ina allaha sariicu lxisaabi. maalintuu dhintayna rasuulka magaalada madiina ayuu ugu tugtay salaadii janaasada, istaaga ayuu dhahay, boqor qiimo badan ayaa dhintay, 4 takbiirood ayuu u takbiirsaday sala allahu calayhi wasalam. yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaa rumeeyayow, isbiruu sabra, oo ka sabra macaasida, oo ku sabra diinta, oo ku sabra dhibaatada adduunka, wasaabiruu la sabirta magaalada, waraabituu ama wasaabiruu ka sabar badiya idinkaa mu'miniin ah, waraabituu ku xirxirnaada diinta iyo goobaha jihaadka iyo masaajidada, wattaquu llah, ilaahayna ka cabsada, lacallakum tuflixuuna, inaad liibaantaan ayaa la arkaa. wabillahi tawfiiq, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.